qof kasto Switzerland degan hadaad family tahay horta family baba noqon ilaahay baa ka dhigay saad u rafaadan lahayd in naftu ku jirta awlaadaadana u hagaajisan lahayd hadii aad family ahayn laakiin qof Switzerland ama Europe degan waxa ahaa waxa family ku samaysanina intaad ka shaqaysataan waxoogaa walahi iskaga taga aniga Switzerland waxbarasho badan aan galay luqad inta ka tagay oo luqadii bartan jaamacad galay waxaan dhameeyay 2023 bilowgiisii hadii oo waxbarashadii ugu dambeysay ay tahay hadana waxa weeyaan hadaan isleeyahay maalinkii Europe kula falmaanaysa ama stan kula noqonaysa maalinkii u horeysay gal anoo xitaa luqad baran shaqo iska bilaaban lahayo u shaqeystaan noqon laakiin waxa islahaa wadankan wadan fiican opportunity fiican leh waxbarasho ka baraha dhowna ka shaqeyso adigu ugu dambeyn mar dambe ay qaraaraaday waxyaalo badan oo xagga diinta iyo xagga dhaqanka iyo dhinacii kala dhaqaalaha shakhsinimada uu sameeyay dadkii meesha joogay waxa arkaysaa oday 40 sano degan isaga iyo caruurtiisii maanta uu la daalan yahay wax laga yaabaa caruurtiisii midii waxa way iska rafaadsan yahay hadda waxba caay ma oran ma asaas caruurta noqdeen laakiin hadday noqoto xaalad caafimaad hadday noqoto xaalad kala dib jirnaba caruurta way la soo kulmaysaa xaalad diin la'aan way la soo kulmaysaa waalidku way la rafaadaan laakiin aan waxa oran lahaa qof kasta oo single oo Switzerland jooga ama Europe jooga shaqaysa in kugu filan waxoogaa guriga meel aad u hoyatay iyo wax yar soo qabso iskagana ima Europe hadii la iga yeelayo kale la iga yeeli maayo ogeey laakiin hadii la iga yeelayo qof walba maanta soo celinaa inta waxoogaa xamaala ilaa